munaasabadan ay soo qaban qaabisay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Galmudug isla markaana lagu maamusayay maalinta macalinka Soomaaliyeed oo ku beegan 21 November ayaa xalay lagu qabtay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. munaasabadan oo ka qayb galeen mas'uuliyiin aqoon-yahano iyo xubno ka socda bahda waxbarashada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada reer Gaalkacyo ayaa waxa ugu horreyn ka hadlay agaasimaha waxbarashada degmada Gaalkacyo Xamdi Cabduqaadir Geelle. macallimiinta Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan min gobol ilaa degmo iyo tuulo si qaas ah waxaan hambalyo u leeyahay dhammaan macallimiinta Galmudug gaar ahaan macallimiinta gobolka Mudug. maalinta 21 November waa maalin aad u qiimo badan, waa maalin ka dhex tilmaaman maalmaha Soomaaliyeed oo ay dadku Soomaaliyeed ay aad ku casuumaan ay goonida ay u leeyihiin. waa maalinta aan u taaganahay dhamaanteen inaan u mahad celino, la faraxno, raallina aan ka wada ahaana dhamaanteen macallimiintii waxna baray iyo kuwii wax sii baray dhamaantooda. waxaan leenahay macalinkeena iyo macalinkiisaba allow kaal hambalyo dhammaan macallimiinteena. waxaad mugdiga ka saarteen oo iftiinka dhex dabaaliseen ardayda Soomaaliyeed. waxaad tiir dhaxaad u tihiin oo aad maxayteen dhisteen bulsho Soomaaliyeed oo aad u qurux badan. la'aantiin maynaan jirneen. waa idinkaga mahad celinaynaa dadaalka maxayteen raalli ahaanshaha ardayda aad ka tihiin raalliga. la'aantiin dadka Soomaaliyeed lafdhabar maysan lahaadeen. idinka waxaad u tihiin waaridka labaad oo ah. waa idinkugu hambalyeynaya maalintiina xafladeena lagu maamuusayo 21 Novemberna way inoo furan tahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Cabdiqani Artal Maxamed, agaasimaha waaxda dugsiyada waxbarashada ee wasaaradda waxbarashada Galmudug ayaa isna sheegay kadib waa laga hadlay xafladan ama madashan ujeedka laga lahaa macalinimada. macallimiintu in badan ayaga ka midana way ka hadleen, madaxdii kale soo istaagtana waa ay ka hadashay. wax badan oo la hambeeyay ma jirin. agaasimaha waaxda arrimaha bulshada dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo Daahir Maxamuud Cilmi ayaa isna hambalyo u diray macallimiinta Soomaaliyeed. ardada iyo jiirasha iyo ummadda bulshada Gaalkacyo degan ay u dareemaan inuu macallinku leeyahay maalin gooniya iyo si gooniya iyo hooyo gooniya inuu yahay. inta marka ka soo kaco waxaan leeyahay macallimiinta hambalyo maalintiina. munaasabadan ayaa sidoo kale waxaa ka hadlay qaar ka mid ah aqoon-yahanadii, macallimiintii, maamulayaashii dugsiyada iyo sidoo kale xubnihii ka socday bulshada qaybooda kala duwan kuwaasi oo ka hadlay ahmiyadda macallinku u leeyahay bulshada iyo dhibaatadu ay qabaan macallimiinta Soomaaliyeed. ugu dambeyn wasiirka wasaaradda amniga Galmudug Aadan Warsame Cilmi ayaa soo xiray munaasabadan lagu maamusayay maalinta macalinka Soomaaliyeed oo ku beegneed 21 November. macallinkuna macno kale ayuu lahaa. sideedana macallin markiiba calanka loo saaray inuu wax yahay waxay ahayd markii ololaha la aaday oo waxbarashada afka Soomaaliga la dhaqaajiyay ayaa macallinka Soomaaligu si fiican u soo muuqday. markaas macallinka caadiga kaliya ma shaqeynayay, waxay shaqeynayaan ardadii dugsiga class 7 baan u maleynayaa ilaa form 4 baa wada macallin ahaa oo dadku wax la barahayay. marka waa garan kartaa markaas bulshada macallinka ahayd intay tiro leekeed iyo qiimaha lahayd. Cabdirasaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.